caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahay golaha deegaanka isla markaana kalifay in gabi ahaanba mas'uuliyadihii iyo adeegyadii iyo baahiyaadkii asaasiga ay bulshada u hayeen dowladaha hoose in ay noqdaan fadhid taasi oo ay sabab u tahay kadib markii uu maayarku musuqay lacagtii loogu talagalay mashaariicdaas iyo adeegyada bulshada in wax lagaga qabto iyada oo miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada Gabiley ay noqotay miisaaniyad aan xaqiiqada ku fadhin isla markaana ah miisaaniyad ay ku jiraan mashaariic isla markaana ah miisaaniyad lagu musuqmaasuqa hantida ummadda oo kaliya isla markaana ah miisaaniyad ay ku jiraan mashaariic iyo adeegyo iskugu jira qaar madhalaysa iyo qaar inta la fuliyay haddana hantida ummadda lagu musuqo waxaana ka mid ah mashaariicdaasi mashruuca afartahaad ee la dhisay 2017 oo 2016 ku jira 2017 ku jirta isla markaana 2018 oo sanadka soo socda ku jirta waxaa ka mid ah laba sariimadood oo lagu sheegay in midna la dayactirayo oo 300 milyan sanad kasta saddexdaas sanaba ku jirta iyo mid kale oo iyadana 375 milyan oo lagu sheegay in waxa soo dhan ka daran waxa weeyaan deyn lagu sheegay mashaariic la fuliyay oo sida sharcigu u dhigaya ay ahayd in miisaaniyadii 2017 aan ansixinay wixii lagu qabtay in la soo hordhigo sida sharcigu sheegayo isla markaana la soo hordhigino iyadana la sheegayo in mashaariicda la fuliyay laga leeyahay deyn 800 milyan waxa soo dhan ka daran oo sifa aan sharciyada waafaqsanayn waxa weeyaan qodobka maxay in wasaaradda dakhliga oo ah wasaaradda u qaabilsan dowladaha hoose inay ku ilaaliso shuruucda ayaa waxa miisaaniyadeeda ku jirta oo wax lala yaaba oo sifa sharciga baalmarsan in la yiraahdo wasaaradda dakhliga waxa kab siinaysa dowladii hoose waxaan markaa rabnaa in aan wasaaradda dakhliga aan u soo jeedinayaa in ay bulshada u cadeyso in dowladda hoose ee Gabiley lacagtaasi ay jirto ay ku kabto iyo in ay tahay lacag hantida ummadda oo lagu musuqmaasuqayo qodob kale inaan ka hadlaan doonaya wax weeyaan waxaad ogtihiin in biyaha horey looga hor istaagay wasaaradda biyaha oo qaranka mas'uulka ah oo maayarku digreetadii wasiirka uu horey u diiday oo uu yiri waxba kama jiraan oo ka soo qaaday isla markaana dowladda hoose meel ay ku maamushaa aanay jirin waxaan doonaynaa in aan hanti dhowrka guud ugu baaqaya in odad la geliyo isla markaana la ogaado cidda dhabta ah ee qaadata dakhligaasi ka soo baxa biyaha iyo meesha ay ku xirooto waxaan soo gabagabeynayaa hadalkaygan in waxa weeyaan wasaaradda dakhliga iyo hanti dhowrka guudba waxaan ugu baaqayaa in mashaariicda madhalayska ah iyo mashaariicda kale ee inta la fuliyo haddana hantida lagu musuqayo in la baadho isla markaana miisaaniyadaasi dib loogu noqdo oo aanay ahayn miisaaniyad ku fadhida xaqiiqooyinka dhabta ah isla markaana aanay iswaafaqsanayn mashaariicda ku qoran iyo adeegyada ku qoran ee waa la fulinayaa la leeyahay iyo hantida ummadda waxa lagu qabto miisaaniyaddan ku jirta waxa weeyaan waa isla mashaariicdii 2016 ilaa 17 ilaa 18 waa isla miisaaniyadii waxa la leeyahay wax fulay ama laga saaray ama maxay heeday la qabtay ma jirto isla markaana waxa dheer in la yiraahdo mashaariic baa la qabto diin 800 milyan ay ku jirto waxaasi oo dhan oo aan ahayn wax bulshadii ku noqday ama bulshadii wax loogu qabtay isla markaana xaaraana waxa weeyaan markaasi ma suurtagal ma noqonayso ama ummadii aanu dhaarnay inaanu khiyaamayno ayay noqonaysaa haddii aan wax weeyaan wax aan jirin oo ummadda loo haba yaraatee sidii aan hore ugu sheegay aan marar horena uga hadlay meel ay dowladda hoose kula wareegtay ma jirto meel ay ku maamushaan ma jirto miisaaniyadda dowladda hoosena kuma cadda dakhliga laga qaado ama lacagta laga qaadana waa lacagta aan imika doonayo ama awdadka aan ugu baaqayo in la baadho la ogaado cidda rasmiga ah ee lacagta dakhligaasi qaada ama ay ku xirooto lacagtaas ay ku xirooto golaha magaalada sheegay in wakaaladda biyaha ay shirkadii Samsung ay kala wareegtay dowladda hoose maamusho ilaa imika waxay markaa hore dadku ka qayliyeen shirkadii Samsung baa oo sheegay in biyuhu qaali yihiin
soo gelintu inay qaali tahay iyo agabka loo isticmaalaya miyaan ahayn maadaama ay local governmentkii la wareegtay inay dadka u jabnaato ama u sahlanaato inay gashadaan xaafadaha biyaha golayaasha deegaanku waxa ay mas-uul ka yihiin baahiyaadka asaasiga ah ee bulshada in ay wax ka qabtaan mar kastana waxa weeyaan waa inay eegaan inuu qof kasta oo degan ama ku dhaqan gobolkiina Gabiley inuu helo biyo jaban iyo leer jaban iyo adeeg uu maxeeday uu awoodi karo lacagta la charge gareynayo laakiin nasiib darro waxa weeyaan marka horeba waxa weeyaan wax biyo oo maanta dawladda hoose ay la wareegtay ama ay maamushaa marka hore ma jirto taasi totally takale waxa weeyaan aan maanta ka hadlaya aan leeyahay oo dad galiya waxa weeyaan waxaan isweydiinanaa maadaama waa inay miisaaniyadii watan waan hayaay aanay ku cadayn meel dakhliya oo naga soo gala biyahaas iyo meel aanu kula wareegnay oo sida aad idinkuba ka war haysaan dawlad hoose ahaan aad goobjoog ka ahayd inaan kula wareegaynaana ma jirto waxa weeyaan miisaaniyadeedana kuma jirta isla markaa waxa weeyaan cidda qaadata waata aan doonanay in uu odhadku uu baadho oo la ogaado cidda rasmiga ah ee maanta waxa weeyaan maanta dawladdii wasaaradii daakhiliguna ma maasho horaad ogeedano waa tii digreetadiisa uu hor istaagay mayor iyadoo ahayd sifa sharci darra oo qarankan mas-uul uga yahay ay wasaaradda biyo ay mas-uul uga tahay isla markaana meel ay dawladda hoose kula wareegtay oo lagu wareejiyo macallimiinku aad saxaafadaan in goobjoog badan noqon lahaydna ma jirto marka waxa isweydiintu ay tahay oo aanu rabnaa oo aan ugu baaqayaa mar walba in uu odhadku waxa weeyaan la baadho bal cidda dhabta ah ee qaadatay dakhligaasi iyo halka uu ku xiroodo waxaan kaloo rabaa in aan fursadan xeer low number 17 waa xeerka loogu talagalay in lagu maamulo dhulka Somaliland isla markaana waxa weeyaan waa xeer aan fasaxaynin ama aan u ogolaynayn dawladaha hoose in ay qorsheeyaan dhulka ku dhaqan la'aanta sharciga ayaa keentay in maanta waxa weeyaan dantii guud cid aan awood u lahayn oo dawladii hoose ama meeradii ay intay u gacan gasho ay ku tagrifaan dantii guud ee loogu talagalay in bulshada loogu qabto waxaad markhaati ka tihiin in maanta anagu haddii aan maanta dan guud aanu samaynayno in aanu wax dan guud oo maanta aan gacanta ku hayno aan bulshadii ama MCH ama dhakhtar ama iskuul uga samaynaa ma jirtay waxa weeyaan marka aan dan guud u baahno dhulka waan iibsanay waxa weeyaan waxaan tusaale u soo qaadan karaa garoonka aad aragteen dhulkiisa waan iibsanay iskuulka imika ka soo horjeeda iskuulkan magaalada halka laga soo galay ee Kuweydiga waan iibsanay MCH hadaan u baahno waan iibsanaa marka waxa weeyaan waxaan xukuumadda cusub ee weligeedka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ugu baaqayaa in sidii uu ballan qaaday uu sharcigu sareeyo qof kastana mas'uuliyadiisa lagula xisaabtamo isla markaana waxa weeyaan sharcigu shaqeeyo qofku markuu sharcigu ku gafo oo qabto waxa weeyaan anaga waxa ogtiin maanta waxa weeyaan kutumashada shuruucda iyo xeer hoosaadka iyo xeerkii maanta aan ku shaqeynayno meesha ka baxay awgeed waxa uu keenay in gabi ahaanba dawladii hoose ay fashilanto oo maanta dawladii hoose ee Gabiley oo ahayd darajada ee uguna kana mid ah degmooyinka ee Somaliland degmada ugu dhaqaalaha badan maxay degmooyinka marka laga reebo Berberiya Hargeysa in maanta ay awoodi kar laadahay in shaqaalihii dawladda xataa 3 bilood ay mushaharkii u hesho isla markaana maanta shidaalkii yaraaye ay ku shaqeynayeen iska rogooyinka qashinka ay la la'ayeen marka waxaan anigoo ka baxay aan ku soo gabagabeynayaa in mushkiladda ugu weyn ee dawladaha hoose haysataa ay tahay ku dhaqan la'aanta sharcigu wax macnaa ma sameeyo haddii uu fulin waayo marka waxa weeyaan sharcigii inuu fulo maanta sharciga si cad dawladaha hoose mas'uuliyadda awooda u dhigaa waa loo number 23 kumana shaqeyno maanta waxa weeyaan kala fadhigii 2017 aan miisaaniyadda aanu ku ansixinay waxa noogu xigay kala fadhiga kale ee miisaaniyadda kale lagu ansixinay marka waxa weeyaan kala fadhiyadii ma waxa weeyaan ma waxaanu ka shaqeynaa oo miisaaniyadda mise ummad baanu ka turjunaay waxa weeyaan ay ahayd inaan u shaqeyno su'aal xilwa waxaad kamid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley dawladda hoose degmada Gabiley أنا واحد عم يسمع هنا يقول لكن واحد مش عارف شو مثلا يدوي يبستان وقالت because of مير ولا بواحد كذا ده بدون جودة محاسة ما إلى يدوي ده وصدقوا يبستان إذا كنتم تيجوا قاعد واحد محاسة بابي وحويان
waxa weeyaan dantii guud waxa sababay waxa weeyaan dantii guud waxa sababay waxa weeyaan dantii guud sharcigii ilaalin lahaa ayaa meesha ka baxay isla markaana waxa weeyaan dantii guud waxa mar horeba xaraashay ama wax dan guud oo aanu gacanta ku hagaajirin waa meeyarka waxa weeyaan markaa waxaad ku qasban tahay maadaama anagoo ka duulana baahiyaadka bulshada waxaanu ku qasbannahay inaan iibsano waxa weeyaan waxaan markaa ugu baaqaynaa sidii ay xukuumaddu ay horeyba digreetada uga soo saartay in waxa weeyaan sharcigu uu shaqeeyaa loo baahan yahay oo waxa weeyaan cid kasta oo dantii guud ay ku maqan tahay ama cuntay waxa weeyaan in lagula xisaabtamo iyadoo marka horeba aanu sharcigani awood u siinayn inay dowladaha hoose dhul qorsheeyaan isla markaana ay dadka ka qaadaan danta guud ee sharciga waxa weeyaan waxa u saamaxay waxa weeyaan sharcigii oo aan isagoo jiray fulin waayey sharcigu hadduuna fulin lahayna wax macnaa ma sameeyo waxay sababtay markaa in dantii guud uu iskaga takrifalo maayarka isla markaana aan anagii dantii guud ama wixii aan ummadan wax ugu qabanayn ama ujeedadii danta guud laga lahaay ahayd inaan helsbos iyo mch iyo dhakhtarro iyo sariimada aan bulshada uga dhisnay inay nagu qasabtay inaanu iibsano dhulkii aanu ka dhisanay maana ogolaha ka midii waxa uu ku jiraa guddida anigu waxa aan ku jiraa guddida arrimaha bulshada runtii waxa weeyaan waad ogeedeenoo markii guddoomiyahayagii nimco waa tii aad ogeedeenoo way iska xasishay kadib markii waxa weeyaan qofku mas-uuliyad buu hayaa guddidiina nimca wakiilka oo waxa weeyaan waa guddidii joogtada waxa weeyaan wax kasta oo marka uu goluhu maqan yahay dee iyadaa golihii ka wakiila annagu horta waxa weeyaan waxaanu wax ku samaynaa waxa weeyaan waa kala fadhiyo waxaanu nahay sharci dejin maadaama waxa weeyaan maanta sharciga law number 23 sida uu dhigay qodobka 66 firqadiisa koowaad waxa weeyaan waxa uu dhigaysaa in kala fadhiyada goluhu uu sharcigani waajibiyey waxa weeyaan maanta kala fadhigii 2017 waxa noogu xigay kaas waa sharci jabin waxa weeyaan maanta marka la leeyahay maxay haday waxa meedaan qaban de waxa weeyaan golihii waxa weeyaan wixii uu ku kulmi lahaa iyo kala fadhiyadii uu kaga wada hadli lahaa arrimaha bulshada iyo waxa bulshada laga qabanayo wixii noo qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin waxa weeyaan biba jirtaba kala fadhigi waana sharci darro waana sharciyada aan doonayno waxa weeyaan qofku haddii uu sharciga jabiyo waana sharciga qabto maanta meerka waxa weeyaan sharcigu waxa weeyaan waa xilka in laga qaado qodobka 66 bay ku caday wuxuu ku sifoobay inuu qaban waayo kala fadhiyadii sharciga uu waajibiyey sidoo uu dhigayo qodobka 66 marka waxa weeyaan guddidaasaan ka mid ahay guddida arrimaha bulshadaan ka mid ahay sharcigaan dhigaya in guddi qof kasta oo xildhibaan oo ka mid ah guddigu ka mid ah